Assalaamu calaykum saaxiibayaal soo dhawaada waa mar kale iyo cawil waxaan maanta idiin wadaa xikmadihii Dr. Mustafa Kamaal Maxamuud oo ahaa dhakhtar faylasuuf iyo qoraa caalim iyo mufakir waxa uu qodobka koobaad leeyahay aqoonta dhabta ah sinaba ugama hortimaado diinta ee waa cadayn iyo xaqiijin. Qodobka labaad warbaahintu waxay u tartantaa sidii ay ruuxa naftiisa uga xadi lahayd. Qodobka saddexaad inaad shakhsiyadaada ixtiraamto waxaa ka mid ah in aad ka dheeraato dadka aan qiimahaaga garanaynin. Qodobka afraad haddii aanay dhalinyarada noloshooda samaysan kuwa kale ayaa nolol ay samaysteen qaadashadeeda ku qasbi doona. Qodobka shanaad aadamuhu waxa uu aadamaha kale kaga sarreeyaa baaritaanka xaqiiqada. Qodobka lixaad aqoonta maadiga ah guriga way inoo ifisay garaadka saynooma ifin. Qodobka toddobaad ogow waxaad ka mid tahay boqorada adduunka dushiisa ku nool ee u mahadnaq Allah oo ku abuuray ee xisaab la'aan kugu siiyay nimcada weyn ee aad maanta haysato. Qodobka sideedaad dadku waa ay isbedel badan yihiin ee qiimahaaga ka dhex raadin wajiyada dadka kale. Qodobka sagaalaad aadamuhu waxa uu aadame ku noqdaa iska caabinta waxa uu jeclaysto iyo xamilista waxa uu neceb yahay. Qodobka tobnaad sida haraadkeenu u xaqiijinayo inay biyo jiraan ay cadaaladda aynu raadinaynaa u xaqiijinaysaa inuu cadaalad jiro. Qodobka 11aad xatooyada boqorada magaceedu fani waa cashuur. Qodobka 12aad waxa kaliya oo aad diin ku yeelan kartaa waa aqoon oo Ilaahay jaahilnimo laguma caabudo. Qodobka 13aad naftaadu waa markabkaaga oo haddii aad adigu fuushana waad badbaadaysaa haddii iyadu fuushana waad halaagmaysaa. fadlan sii sheekay insha Allah waxaa soo turjumay Maxamed Deer. Assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.